inaan gacan siino oo aan isgacan siino oo aan iscaawino oo dawladdu ay qayb weyn ka qaadato sida wadamada aan aragnay oo Yurub iyo Mareykanka ah dadka sababka ah waa la caawiyaa taasna waxay keentay dawladahaas in Ilaahay u barakeeyo oo roob aan kala joogsan inuu siiyo iyo barwaaqo marka saddexdaas arrimood waxaan ogahay waxyaabaha Soomaaliya sharafta hoos u dhigay haddaan ugu dhaqmin inay ahayd waxaan ognahay Soomaaliya adduunka meesha kaga jirto adduunka Soomaaliya waxay kaga jirtaa bacdama saddexdaas arrimood aan ignore gareynay annagoo dad Islaam ah waxaan kaga jirnaa adduunka at least 10 sano soo dhaafay dalku wuxuu adduunka aan ma oran karo iyagu waxay yiraahdaan dalka ugu dulisan laakiin aan ku soo koobno dalka ugu xun macnaheedu waxay tahay waxaan naloo arkaa dad isxadaya iyagu ha ka bilaabato dadka dawladda ku jira ha ka bilaabato dadka shaqaalaha ah waxaan ogahay ganacsatadu waa fiican yihiin weli culture-koodii islaamka waa hayaan siyaasiyiintu marka waxaa la rabaa inay taas wax ka bartaan ninka ganacsiga ah ama ganacsadaha ah marka uu qofku wax ku darsanayo wuxuu ku darsanayaa qof aamin ah hadduu qofkaas hal mar khiyaamana magaalada soo galaya qofkaas waxay ahayd siyaasiga marka hal mar la arko inuu khiyaamay in siyaasadda laga saaro marka anigu waxaan ballan qaadayaa ammaanadaas aad ii dhiibateen oo kan camoolaha ah indhahala kan dhagahala ilmahaas aan dalan weli iyo kuwa hadda dhibaatoonaya oo qaxaya oo abaaruhu baabi'iyeen iyo qofka
warbixin dheer waan ka taabanaya meelo kala duwan haddii noqoto arrimaha gudaha ee dhaqaalaha haddii noqoto ganacsiga haddii noqoto la dagaalanka argagixisada haddii noqoto arrimaha dibadda oo aan ku sheegay annagu waa ixtiraaminaa dowladaha dariska ah waa ixtiraaminaa caalamka iyaguna waxaan ka rabnaa sidaas oo kale inayna ixtiraamaan oo na tixgeliyaan oo nala shaqeeyaan speech ballaaran oo ummadda Soomaaliyeed aan kula hadlayo ahaa waxaan ballan qaaday inaan keeni doono ra'iisul wasaare hufan oo wanaagsan muddo 15 beri dhexdooda ayaan ku magacaabay meesha dastuurku uu ii siinayay inaan ku magacaabo 30 casho runtii waa markii ugu horeysay intaan ogahay 15 casho gudaheeda lagu magacaabo ra'iisul wasaare isagana waxaan kula dardaarmay inuu 15 casho gudaheeda ku magacaabo golihiisa wasiirada laakiin qabiiladii baa dhibay marka waxay ku qaadatay 21 casho markaas waxa la leeyahay waa daahdeen maxaa yeelay madaxweynuhu wuxuu leeyahay 30 casho
uga shaqeeyeen runtii hawshaan inay fusho oo hawshaan ma ahayn hawl iska dhacdeen waxay hawl hore looga shaqeeyey marka waa kaaga mahad celinaya ganacsatada Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaalow dal aan dhaqaale lahayn ma shaqeyn karo anigu waxaan la imaanayaa amaanadii inaan la tartamo dalka ugu hufan oo ugu fiican oo la yiraahdo Denmark yaan rabaa inaan la tartamo markay noqoto hufnaanta meesha aan kaga jirno 176 wax naga hooseeya marka waxaan isku dayaynaa meel hore inaan keenno si aan u keenno hadda waa inaan helno dhaqaale aan maamulno ganacsiyada waxaan ka codsanayaa marka rugta ganacsiga halka nala jooga iyo ragga naga maqanba inay dawladda taageeraan oo awal haddii shaki ay ka qabeen wixii ay dhiibaan in meel kale la marsiinayo ballan baan kaga qaadayaa dhaqaalahaasi in sidii ay tahay in loo maamulo oo qof shakhsi ah uusan si xun ugu takrifan laakiin de maxaan lagu xisabtamayaa haddii aan waxba loo dhiiban waxaan ka codsanayaa ganacsatadu inay u hormaraan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay canshuurta bixiyaan